asalaamu calaykum asxaabtayda qaaligaa soo dhawaada meel walba aad ku sugantihiin adduunka dacaladiisa. maxaan cawada inii sidaa asxaabtayda qaaligaa sida adkana aan u jeclahay. cawada waxaan inii sigaa sidaad hore iga barateen sheekooyinka. waxaa kale youtube-keyga kaas u yahay barashada cilaansaarka inaan aad uga dhiso gabdhaha. mararka qaarna aan inii soo geliyo branki goosgoos ah, mararka qaarna aan inii soo geliyo sheekooyin yar oo maaweela ah. saxaabteyda qaaliga cawada waxaan inii wadaa qiso jacayl oo dhab ah, haddana aada u xanuun badan. jacaylku sidiisaba inuu yahay malab iyo macaanba. saxaabteyda qaaliga ah sheekadan waxay qusaysaa maa-ida iyo maahir. saxaabteyda qaaliga ah maa-ida waxay ahayd gabar yar, da-deedana aada ay u yar tahay, oo dugsiley ah. waqtina dugsiga aada, waqtina ay iskuulka aado ay dhigato maaito. saxaabteeda qaaliga maa-ida waxaa soo korisay hooyadeed. aabaheed mar hore ayuu geeriyooday ayadoo yar. saxaabteeda qaaligaa saad ogtiin maa-ida waxay ahayd gabar yar asluub badan, haddana degan iyo edab leh ee ku sugan guriga hooyadeed. marna uu aada iskuulka, marna uu aada dugsiga. asxaabteyda qaaligaa wax shukaansina markaas ma aysan gaarin, mana aysan sameyn, mana aysan isku howlaheydaba ma ahayn. waayo da-deeda aadayba u yareedba, waxaas maba aysan gaarinba. saxaabteyda qaaliga maalmo ka mid ah ayaa waxaa dhacday maa-ida inay ka timid dugsiga. markay dugsiga ka timid baa waxaa lagu yiri maalinka iskuulka wuxuu ahaa sabti, yacni ma aysan aadaynin sabtigii. xataa iskuulka lama aadaayo, dugsiga ayaa la aadaa. maa-ida markay dugsiga ka timid ayaa waxaa la yiri maa-ida orod alaabtan qaad eegay dukaanka. waxaa alaabta loogu soo dhiibay habaryarteed, ayadaa hooyadeed la dhalatay baa lagu yiri maa-ida qaad alaabtan ee u gey habaryar alaabtan. run ahaantii maa-ida alaabtii ayay la soo orotay, waxayna u keentay habaryarteed. habaryarteed markii alaabta u keentay, nasiib wanaag meeshaas maa-ida waxaa ka arkay inan yar oo fadhiyey, magaciisana la yiraahdo maahir. inankii yaraa ee meesha fadhiyey ee maa-ida ayaa indhihiisa ku dhacay. maahir ayaa waxau indhihiisa qabteen maa-ida. run ahaantii damac ayaa galay, gabadha yarna wuu ildoogsaday oo waa ka helay. maa-ida maalintaas baa dukaanka loo soo diray. wiilkii wuxuu isku wadiiyey dukaankii inuu mar walba yimaado, uu shaqo ka dhigto dukaanka imaashihiisa. socodkii horena uu ka badiyo, socodkii hore uu dukaanka kusoo badiyo saantiisa. misna uu iscelin waayo oo iseen waayo oo weydiiyo habaryartii, ku yiraahdo meeday gabadhii yareed ee dukaankaaga timid habo hadda ka hor maalin maalmaha ka mid ah. habaryartii waxay ku jawaabtay, war aniga dukaankeyga gabar yar oo imaaday ma xasuusto, waayo dukaankeyga dad badan ayaa yimaada. isagana markaas ma garaneyn gabadha waxay u tahay, ilmo yarna way ahayd, aad bay u yareed. habaryartii wuu ka waayay gabadhii. dukaankiiba unbuu tagaa, gabadhii unbuu ka eegaa, dukaankii unbuu tagaa, gabadhii unbuu ka eegaa. wuxuu raadinayay maahir jaaniskii maalintii oo kale inuu helo mar kale siduu u arko maa-ida. saxaabay maray kasoo wareegatay 3 bilood gudaheed ayaa habeen loo soo diray haddana gabadhii adeeg. maa-ida markii adeegii loo soo diray, iyadoo bannaanka aada uga cabsanaysa, haddana cabsi badan, jeclayn inay habeen madow baxdo, aadna u baqaysa. oo cabsanayaa ay tiri bannaanka aniga keligay ma aadi karo. markaas baa la raaciyey wiil yar oo ayada la dhashay oo walaalkeeda gabadha weheli ee raac. markaas maa-ida tuug kama cabsanayn, tuugna ma taqaano, wax kalena kama cabsanaynin ee waxay ka baqanaysay bahalada way yaraad, yacni halaqyada unbay ka cabsan jirtay, masaska iyo bahalada dariiqyada mara habeenkii.
markaas dhii amay bahal waa ayada niyadeeda say iska dhaadhicisay waxay la ahaan jirta habeenkii haddii baxdo inay bahal ku istaagayso. habeenkii way soo baxday iyadoo dhulka iska eegaysa in badan, walaalkeedna garabkeeda socdo. nasiib wanaag Maahir ayaa mar kale Maaida indhaha ku qabtay iyadoo loo soo diray rooti. markuu indhaha ku qabtay waaba soo rabay iyo si lagu daray. gabadh unbuu hal mar sidii wax waalan ku soo booday soo daba kacay. wuxuu yidhi aniga sidee tahay, ma fiican tahay, maxaad soo doonteen? Maahir Maaida wuu ka yara weyn yahay weliba in badan, iyadoo aad bay u yar tahay. maxaa soo doonteen? waa weheliyey, waa ina dhaweyna, waa cabsaneynaa. ayada ma la hadlaynin, wiilkii yaraa ee walaalkeed ahaa unbaa la hadlaayay. wiilkii yaraa ee walaalkeed ahaa unbaa la hadlaayay. wuxuu ku xujiyey siduu wiilka ula soo sheekaysanayay. wuxuu iska dhiga Maahir qof wehelinaya ilmaha yar cabsida haysa, haddana gurigii geynaya, balse asagana aad buu gabadha ugu dhibaatooday raadinteeda. Maahir wuxuu sameeyey maadaama gabadhii in badan uu raadinayay, raadinteedana uu ku dhibaatooday. guriga markuu ilbaabkiisa la taagan yahay ayuu Maaida istaajiyey. markaasuu ku yiri Maaida magaceeda, horta gabadha magaceeda intii wadada lasoo socday unbuu magaceedii bartay, meeshii degan yihiin, guriga, xaafadii, wixii dhan uu bartay. markaasuu ku yiri hal mar waxaan kaa codsanayaa, alaabtan markaad adigii aboow guriga gashaan oo alaabta dhigtaan, ilbaabkan taaganaya dib u soo laabo. waxaan rabaa hal su-aal inaan kuu sheega adiga. run ahaantii Maaida aad bay u cabsatay. waxay la noqotay inuu cirkaba kusoo dumay. cariiri unbay dareentay, culays unbay dareentay, cabsi unbay dareentay. way baqaysaa waayo weli ayadii inan ma haasaawin, banaankana ma aysan istaagin, weligeedna inan lama aysan sheekaysan. Maaida waxay dareentay cabsi aada u weyn, culays aada u weyn, ayadoo jaraynaysa, eraygiina ka dhex guuxaya, daacadna iska oo ilmo yaroo nadiifa ah, beenna aan sheegi karin, balanna aan ka bixi karin, cabsi weyna haysa oo gariiraysa unbay cuntadii dhigtay. Maaida alaabtii markay dhigto walaalkeedna uu yaaban yahay, way filan waa la tahay. cunugii yaraa isagana Maaida oo nin soo raacay, nin soo dabagalay labadooda. walaalkeedna ay ka cabsanayso u malaysa inuu soo farfiiqaayo oo waalidka ku diraayo, ayay Maaida iska daba wareegsatay sidii makiinad cajiin ah. iska daba wareegtay. markay iska daba wareegtay, ballantiina ka bixi weysay, reerkiina ka cabsanayso, cunugii ka cabsanayso, culaysna ay la noqotay eraygii soo laabo, ayay Maaida banaanka u baxday. Maaida markay banaanka u baxday ma jawaabi karto, waxay ku hadasha mataqaano, waxay sheegta mataqaano, qofkan waxaan ka raba mataqaano. way u soo baxday. run ahaantii markay u soo baxday ayay istaagtay Maahir hortiisa, misna hoos eegtay. markaasuu ku yiri Maaida abbaaya, maalintii aad dukaankaas alaabta keenaysay ee indhahaygu ku qabteen, ilaa maalintaan ma harsado, mana hurdo, mana hoydo, adiga unbaa ay hortaagan, qalbigaygana marna kama dhammaatid. ilaa intaasna waan ku goobayay. 3 bilood ayaa kasoo wareegatay, 3 sano ayay ila noqotay, intaana adiga unbaan ku doonayay. ma jawaabi karto, ma hadli karto, hadalkaba mataqaan, wadniha unbaaba xad lahayno, si xad la-aan u dhaqaaqaya, reeg wadniheeda unbaa nuucsanaya. hadal hataa afkeeda kama soo bixi karo, cabsi ay qabto. shukaansi mataqaano, hasaawo mataqaano, nin weligeed lama hadlin. waa cunug yar qayb marna iskuulka aado, marna dugsiga aada. gabadhi wuxuu wadnaha xanuuno, wadnaha gariiro, jawaabi weyso, asaga unbaa hadlay. hadalkiisa watay, hadalkiisa watay, hadalkiisa watay, hadalkiisa watay. markuu hadalkiisa watay, isagoo sidii hadalkii u wata unbaa wiilkii yaraa reerkii u sheegay. hal mar baa gurigii laga soo wada yaacay. waa lagu buuqaya. markii lagu buuqay, gabadhi gudaha ayay gashay, waa la xareeyay. naa muxuu ahay ninkan, naa muxuu ahay xaafadii habeenku waa lagu shitay, gabadhii waa lagu camirtay.
qosol iyo qareexa loola kala baxay, waa la kala rifay, waa la kala jiitay, waayo reerka waxay noqoteen wax ku cusub. haddana gabadhu aad bay u yareed, waana da-yareed, laakiin waxay ahayd qof soo jiidasho leh, haddana deganaan iyo edab leh. soo jiidashadooda ka muuqato, qofkuu rabane maalin unbuu ka helaa, dooqiisa unbay ahayd. saa markay ku dhacday gabadhii, wiilkii iyadoo ma u jawaabin, gudaha la soo geli, waa ma jawaabi karin, wadnaha unbaaba garaacmaya cabsi darteed. ninkan ay la taaganahay baa wax kale la ahaa, waa ku cusbaa. bas sidaas bay ku kala tageen. gabadhii habeenkii wax la rifo, wax la jijiido, wax lagu camirto, gudaheedu waagi unba bariyey, way baxday. haddana gabadhii wuu baxay Maahir ilaa guriga markuu bartay, xaafadii unbuu kusoo wareegay, ilmihii xaafadda kasoo horjoogay, dariskii unbuu wareystay. waxaa loo sheegay inay iskoolkaas dhigato. Maadi iskoolkaasay dhigataa haye, maadi dugsigaasay dhigataa haye. okay, ilaa sirti unbuu soo helay qashkii. way baxda Maida, waxay aaday iskuulkeedii. iskuulkii iyadoo joogta baa waxaa lagu yiri, Maida hee macalin, banaankaa lagu taagan yahay. way yaabta, waa aamini weysay, waa naxday. ma ay filaynin iskuulkana looguma tagi jirin. yaa waayo qofkan iskuulka kugu yimid ee adiga kusoo doonay, unbay qalbiga ka tiri Maida. markay yaabta Maida ay isweydiisay qofkan iskuulka kasoo doonay, bay soo istaagtay. dadkii waa isii fiirinaya, gabadhiina wacaya. markay soo istaagtay, way aamini weysa Maida, waxay indhaheeda qabteen. ninka habeenkii hadalka u sheegay unbaa wuxuu taagan yahay banaanka. labada gacmood ayuu isi saartay, si qurux badan oo xarakalana waa u istaagay. ayada keliyuuna soo eegayaa indhaheeda. intaa markay dhaceen, daruus ayay u soo aaday. daruus markay u soo aaday, wuxuu isku soo aadiyey waqtigii iskuulka laga baxayay. markii loo wacay, iyadoo lasaa ula soo istaagtaba, galaaskii gambaleelka ayaa yeeray, waa la fasaxay iskuulkii. markii la fasaxay buu wuxuu ku yiri, adiga unbaan kusoo doonay, waxaana doonayaa Maida inaan adiga ku arko, ayaan halkaan u imid. waa jawaabi la-dahay, cabsanaysaa. weydii waxay ka dhimanaysaa ninkaas la socda, ayada gadaasheeda dhinaceeda socda, dadkuna ay arkayaan. waxay la tahay ayada ceeb aada u weyn, way qajilaysaa, aad bay u xishoonaysaa, wayna cabsanaysaa. dadku maxay ku dhihi doonaan? geedahay ka cabsan, dhulkay ka derbiyaday ka cabsanaysaa. ayadii baqaa derbiga doona inuu ayada soo dayay u malaysaa, derbiyada hataa. waayo waa sheeko ku cusub, gabadhan aad bay u yartahay. ninkaana waa dhiban yahay, jacayl unbaa haya. Maida uu soo waday, wuxuu yiri, waxaan doonayaa inaan hore kuu sii wado, inaan adiga ku arko, anakeen hore aan kuu sii kaxeeye. hore buu usii kaxeeyey. markuu hore usii kaxeeyey baa waxaa la maray meel, wuxuu yiri, soo bax meeshan aan alaab ka qaadanayay. meeluu asaga ka shaqeynayay uu yiri, nakeen meeshaanan maraa, alaabaan ka qaadanayay. meel asaga uu ka shaqeynayay. okay, markii meeshii ay tageen, uu ku yiri, cabitaan cab. waa iyadana oon iskuul bay soo aaday, biyahan cab. cabitaan ayuu u siiyey. Maida cabitaankeedu waa cabtay. cabitaankii markay cabtay, intii cabitaanka cabaysay, dhinaceeda ayuu soo fadhiisto Maahir. markuu dhinaceeda soo fadhiisto Maahir, wuxuu ku yiri erayo ammaan ah. wuxuu yiri, aad baad u qurux badan tahay, adiga dhanba waxaad markaad fadhiso waxaad u egto yiri sida faraskii oo kale aad u egto yiri. markaa fadhiso luquntaadii adiga dhanba waxaan kugu tilmaamo ma aqaan, aadna waan kuu jeclahay. soo jiidasho zaa'id ah ayaad leedahay. run ahaantii adiga dartaa aniga ma seexda habeenkii. sidoo kale Maida waa jawaab weyse, waxay ku jawaabto waa weyse. balse Maida maxaa ku dhici doonaa saxaabi? Maida maxaa ku dhici doonaa? Maida sidii unbuu u sheekeeyey, waa dhageysanaysaa, madaxa unbay luleysaa. markuu jawaab weydiyo ku celceliyo, madaxa unbay saas leedahay.
madaxa unbay saas leedahay sax haye inay leedahaad malaysaa jawaab ugu celinaysaa keliya haye leedahay soo waday xaafadii unbuu keenay xaafadoodii markii lasoo galay okay xaafadii markii lasoo galay iyada markaasaa ugu sii cabsi badan waxay ku tiri anigu waa baqayaa walaalo halkan igaar guriga agtiisa iridiisii bay ku kala leexdeen markay ku kala leexdeen Maaida waxa ku dhici doono ila soo fiiriya asxaabe Maaida waxay ahayd markaas gabar jecel akhriska inay akhriso marna kitaabka quraanka akhriso marna iskuulka casharada la soo siiyay ay diyaariso xiisadii iyo akhriso Maaida waxay bilowday culays ayay ku noqotay arrinta ninkan wiilkan uu sheegayo maskaxdeedana waa qalbi iska yaro nadiif ah bas Maaida cashirkiyaa la qorayaa cashirkii markii la qoro sabuuradda lagu qoro macalinka ardadii ay jawaabaan iyada waa maqan tahay waxay ku maqan tahay erayadii uu yiri wiilkii Maahir uu ku yiri ayuu qalbigeeda wuxuu jiraa Maahir su'aalihii maxaad ugu jawaabi weysay qalbigeeda isweydiinaya qalbiga dood hayaba maxaad ugu jawaabi weysay uu leeyahay iskuulkiina cashar uu karabaa sabuuradii hor fadhisaa qalbigeedu wuxuu isweydiinaya maxaad u jawaabi weysay baa qalbigeeda ka dhex yeeraa okay Maaida markay sheekadaas bilowday waxaa dhacday in iskuulkii haddana ay mar kale aado maalin kale haddana inuu ilbaabka u soo istaago uu yiri waa ku kaxaynaya xaafadan ku geynaa markuu soo wada xaafadii maalintii lagu arka maalinkii kale lagu arka xaafadii dhinac soo kacday waxaa loo sheegay reerkii Maaida ay ka dhalatay waa lagu dacweeyey Maaida aabeed ma nooleen hooyadeed unbaa soo korisay agoonnimo unbay ku soo korisay habarteed waxay usheeda unbay qaadatanaya markaa ku soo korinay aan kugu dadaalay aan wax ku baray inaa wax ii tartaan rabi saacadana niman dariiqada ila istaagaysaa sheekadaas baa keentay ul baa loo qaatay waa la garaacay reerkaa ku kacay waa la isugu yimid wiilashaa ku kacay Maaida waxaan ku dhahay dhibkeedii iyo problemkeeda bilowday iyo buuqeedii rafaadkeedii ayadii waxa haya jacayl miyaa wax maba garanaysa waxay isweydiinay un maxaa u jawaabi weysay markuu qofku wiilka soo hor istaago maba jawaabayso ma hadli karto waxay ku jawaabto mataqaan bas markii la isu kacay gabadhii macnaha dadka ku kaceen dariskii gabadhii ruufyaamaan cidiina ay dilayaan cunugii soo arka uu sheegayo Maaida wiilkii gabadhi markii lagu kacay isagii isiin waayo Maahir duruus ayuu ugu imaaday reerkii gabadha guriga ayuu soo abaaray guriga markuu soo abaaro horta ku intuusa guriga soo abaarin Maahir wuxuu ogaaday islaantii dukaanka inay habaryartii tahay markaasuu ku yiri habaryar anigu waxaan doonayaa gabadhiina yar markaas habaryartii waxay ku tiri warkaas anigaa ku maqlayaa lagaa maqlin cunugtan way yar tahay weli maysa qaan gaarin sidee ku dhihi kartaa aniga gabadhaan rabaa gabadhaan doonayaa ceeb waxaas yaa lagaa maqlin habartii markii saas tiri wuu niir jabo wuu ka cabsaday reerkii wuu ka cabsaday isagoo warkaas qabo habaryar ay ku tiri wuxuu sameeyey Maahir gurigii duruus ugu imaaday markuu ugu imaaday markaasuu yiri Maaida reerkii maamadii u imaaday markaasuu maamadii wuxuu ku yiri caadi asaga jacayl ahaay wuxuu ku hadlayo wuxuu sheegaa midna ma kala oga wuxuu ku yiri gabadhan waxaan rabaa waxbarashada inaan la garab istaago waxbarashada inaan ku caawiyo sheekooyin noocaasa oo kula soo hadla maxaa ka rabtaa maxaa u caawinaysaa maxaa adiga dantaale maayo aniga wax dana ma lihin gabadhiina isiiya ma dhihin waa cabsaday wuxuu isiri sidii habaryartu ku tiri inbay kuwaana ayay ku dhihi doonaan bas markay saas samaysay wuxuu yiri markay saas samaysay cabsaday oo wuxuu iska dhigay gabadha caawinaya saanaan sameynaya gabadha gabar fiican waaye gabar wax baranaysa waaye markaas awgeedaan rabaa inaan u caawiyo camal
haye bal hooyo waxaa layidhi waa baxay bis gabadha bugaag u soo gadaa guriguu imaanaa waxay rabtaa ciddii isku soo dhex daro wuxuu jeclaystay inuu reerka isbaro uu reerka isku dhex daro reerka marnaba laakiin way asmici waayeen maahir sheekadiisa guriguu imaanaa ma dhaafaayo markuu guriga imaado Maaida walaalkeeda loo sheegaa walaalkeedu waa garaacaa gurigu imaanaa guriga markuu imaado waxaa loo sheegaa maamadii way dili Maaida waxaa ku dhacday iyadana waxay dib u raadisay ilaa amarka iyadoo sidii ah waxaa jira wiil ayada walaalkeed ah ee magaalo deganaa magaalo kale ka yimid wiilku wuxuu watay baagiga uu wato wiilka waxaa ka buuxa bugaag wiilku bugaagta ku jira qaarkood waxay ahaayeen bugaag ka turjumaya jacaylka Maaida markii dambe iskuulka waa loo diiday dugsiga waa laga reebay ninka awgiis maahir waa la eebiyey waxaa lagu yiri gabadheena banaanka ka mar ammaan noo sii mar dambe ayaana kugu arkin waayo waxaa tahay nin weyn gabadheenana waa ilmo yar ammaan noo sii banaanka ka mar gabadheena ayadana waxaa la yidhi guriga kama bixi kartid guriga ma ka bixi kartidaa lagu yiri Maaida Maaida hadda iyo kaba sii daranba sheekadii hore markii hore wax la maqli weysay wax la bara weysay culays magnad unbuu ku noqday wax ka tan weyn unbuu ku noqday maxaad u jawaabi weysay unbuu qalbigeedu su-aashaas kale u isweydiinayo oo saacid ah waxbarashadeedii hataa ku ilowda maqanaha jooga u noqotay marka la waxa Maaida hee macalin ay dhahaysa maxaa indhaha shib way hadli aamusaysaa ilaa kama jawaabi karto wixii sabuurada ku qoraa marka horena waxay ahayd gabar aada u firfircoon waxbarashada xaggeeda Maaida markii iskuulkii laga reebay dugsigii laga reebay wiilkii la xeyriyey ayadii guriga lagu celiyay Maaida wiilka walaalkeeda markaas waxay ku tiraahdaa dharkan kuu dhaqaaya aboowe adeerkeedun baa dhalay wiilka ee dhaq uu leeyahay gurigan kuu hagaajinaa aboowe ee dhaq danteeda ayada waxay ahayd bugaagtaas xabadka unbay dhulka dhigataa Maaida